بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore waxaan salaamayaa dad si been ah warar looga sheegay oo aniga la isaaray inaan ka qanciyo dad Soomaaliyeed oo wanaagsan oo waxba dhibaato naga dhaxaynin ah yaan rabaa inaan warka asiga ka qanciyo. qodobka koobaad waxaa la yiri nin leelka saa yuu eriyeeyo nin kale uu ku bedelay. arrintaasaan rabaa inaan warbixin ka dhiibo kuwa warka sida xun u sheegayna inaan ayagana maartay aan hadal u faro. ujeedkaygu waa kaas. giridii magaca la yiraahdo markaan ka jawaabo waxaan ahaa taliye dugsi 20 jir oo meesha la yiraahdo dugsiga booliiskan joogay. waxaa la ii keenay ciidan laga soo qaaday magaalada Boorame Buuhoodle Boorame aanan dhihin Buuhoodle iyo meesha la yiraahdo Laascaano iyo Ceyra Gaabo ciidan booliis oo laga soo qoraa la ii keenay. ciidankaas dugsiga 20 jir ayaan mataqaanaa 3 bilood ku hayay. tiradiisa 250 askari buu ahaa. si nabad qabay dugsiga kaga baxeen. ninka magacaan leh oo ninkan booskiisa lagu qoray markaan faalayar ka dhiibo wuxuu ahaa nin abwaan ah, nin shaqada askarinimada aan qaban karin, abwaan oo gabiya oo reer Galdagoba. wuxuu la qabsan waayay dugsigii iyo shaqadii socotay oo la qabsan waayay. nin baalkan cagaarka ah cunana wuu ahaa. marka shaqadii wuu la qabsan waayay waa anfici waayay. aad uguma sii dheeraanayo maadaama shaqadii ayda ahayd uu la qabsan waayay. dhowr biloodna aan meeshii bilna iyo wax ka badanna aan ku haynay ayaa waxaan fasaxnay inuu iska tago shaqadiisa cidiisi aado markii nidaamkii ciidanku la qabsan waayay. ninkii tababarkii la qabsan waayay saasaan ku dirnay taliye-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed markaas ninkii ahaa wuu ogaa inaan shaqadaas saas uu ninka ku baxay wuu la socday. waa generaalka ka soo jeedo baasha ayada ah oo booliiska markaas ku xigeenka ahaa. taasoo baabkeeda waa saas. nin midabta koor lagu eriyay ma ahayn markee kaligiis ma ahayn. ciidanka inta la eg 250 askari oo saraakiil leh oo dabley leh oo saraakiil xigeen leh ayaa meesha ka baxday. taas macnaheedu waa saas. ninkii maartay si kale wax u qaato oo ka raali ahow warkuna waa noocaas. aniga iyo reer Galdagobna wax dhibaato ay colaadana ma dhex yaalaan. taas halkaasaan uga gudbayaa. tan kale dadka Facebook wararka sida xun u sheegayana inayna ummadda isku dirin oo sida xun u sheegayo Facebook-yadan iyo waxa kan ka qalqaylinayana waxaan leenahay ummadda isku dirin dad Soomaaliyeed tiina dhibaato ka shaqeynina ayaguna intaas aan leeyahay.